السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوشياسي لقايها يقيمها مرو كسر هذا البرنامج كان حيسها لها يقول وأنا قبرتين ساعد وما نستحيل لقى قلنا كيتها نسودنا. ودنا يوم وإنسان قبرتين برنامج كان وحن كوكا لنا رمها بالشدة قارهان قربجوكتا الصومالي قربجوكتا. هذه يجرنا وحن كوري سنة ذاتك وحتكله aqoon-yahanada ah oo activistiyaasha ama arrimaha bulshada u dhundoono kuna dheer kuna caanbaxay waxqabadka arrimaha bulshada sida daraadeed maanta marti waxaa noo ah Firdawso Jaamac Yuusuf oo ah Somali Women's Education Network waa maama iyo aqoon-yahanad iyo activiste arrimaha bulshada wax ka qabatay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinka Twin Cities iyo waliba magaalooyinka dariska ah. Firdawso kusoo dhaw barnaamijkan. Firdawso waxaa la yidhi biyo saabirada looga dhigaayo bal waxaa noo taataabataa arrimaha aad qabato. bismillahi rahmaani rahiim. arrimaha aan qabanaa aad iyo aad ay u fara badan yihiin waana arrimo maaragtay in badan aan kusoo fikreynay wixii aan community u qabanahay waana arrimo aad iyo aad maaragtay ula xiriira waalidka iyo ilmaha. waxaan runtii ka bilaabay haddii aan ka sheekeeyo anigu waxaan go-aanku waxaa waaye marka aan go-aanka gaaray inaan organisation sameyno waxaan nidhi waxaan sameynaynaa inaan ka kaafino baahida bulshada waxyaalaha dadku u baahan yihiin oo dhan oo community-ga ah. marka waxaanu ka bilowday inaanu maaragtay aanu wacyigelin dadka u sheegno waxyaalaha maaragtay jira waxaan weydiin waxyaalaha aad iyo aad ugu baahan yihiin inay maaragtay ogaadaan. waxaa kamid ahayd waalid badan inay dhaheen waxaan rabnaa maaragtay gabdhaha inaan maaragtay iisheeg wax information badan noogu sheegtaan oo maaragtay noo maaragtay wacyigelisaan. waxaanu sameynay markaas hadda Friday focus night waxaan u bixinay oo every Friday ayuu haddii ilaahay ma dhici doonaa. waxaan waa 6 to 8 PM waxaan u talagalay gabdhuhu inay maaragtay dhalinyarada yararka ah oo ilaa iyo haddiiba laga bilaabo 9 to 18 ay isu yimaadaan wada sheekaystaan. gabdho waxaa helay aad u qaali ah oo jaamacadaha ka baxay oo wadanka qaar ku dhasheen oo jaamacad uga bixin qaara maaragtay iyagoo aad wada yimaadeen oo wadanka waxyaalo badan ka og. marka waxay dhaheen waxaan u gudbinaynaa aqoonta aanu leenahay maaragtay gabdhahaas waxaanu baraynaa nolosha sida loo maaragtay la isugu dheelitiro hadday noqoto xagga diinta iyo xagga waxbarashada iyo hadday noqoto xagga maaragtay iisheeg koritaanka oo isagun u baahan su-aalo badan ay gabdhuhu ka qabaan. marka gabdhahaas ayaanu maaragtay baa usii dhundaloolo oo maaragtay aanu uga dhignay inay u noqdaan iyagu dadka maamulaya. waana wax aad iyo aad ay maaragtay iisheeg hooyooyinka nooga codsadeen oo aad iyo aad aan runtii excited ugu noqonay bilowgiisa. qofkii u baahan oo raba inuu yimaado ama ka qayb galo waa every waxaa ka dhacaysa haddii ilaahay Brian Community Center waana 6 to 8 PM. waxaana ay furan tahay maaragtay gabdhaha dhalinyarada ah oo dhan iisheeg waa gabdho kale oo Soomaaliyeed oo life coach bartay oo psychologist bartay oo waxyaalo badan bartay. waxay dhaheen gabdhahan waxaas yararka abaan u gudbinaynaa si aan wixii aan soo maray iyaga uga ilaalino ama dhibaatooyinka annaga aan soo maray iyaga uga dhicin. waxaan kale oo annaga hadis baarta kalaastada wax u qabaan inta ilmaha marka la dhalo ay ku eg tahay maaha aad iyo aad wallahi challenge u tahay ku korinta weliba halkaan ilmaha sidii nolosha qofka maaragtay isu dheelitiri lahaa. aan kaa dhexgala Firdawso aad mahadsan gurmeel asaasay barnaamijka meeqaas wadeen. annaga waxaan asaasnay June of maaragtay 2011 laakiin runtii intaana asaasin ka hor 3 sano ka horeysay ayaan shirin wixii aan qaban lahayn saan u qaban lahayn waxaan ahay aad iyo aad aan maaragtay uga fikreynay uga walwalinayso inta aanan magaca organisation kala sheegin almost 3 sano shirin oo aan lahayn waxaan qabanaa si wax u qabanaa intaana wax baa jirta jaamacadda tagana research badan baan sameynay. haddii aad baaritaan badan samayseen oo aad arrimahaas daba gasheen baahiyaha ugu weyn oo ku dhaliyay inaad programka qabataan maxaa ka mid ahaa?
والله باهي إذا نقول أرسلنا برنامج كان قبلنا وباهي سوتش التانى وحادي أنا أقول أن حنا دمرك أدامنا هاي ذلك اللي الصعوطة وآدي السيدراتي ودلكي ومعني بقصة معنا هل كان دلكي سيدي والولايات وحكوا آدي أنا وصلنا عن سيسرتي علمي هل كان كتير أو ما عرفتي حق كنت آدي الشغل موجود وحكوا كنت آدي أنا وحس علمي ويريا أو لأن يرى أو أتصلها مرفع بيمادي جامعة بيك بحية هرمروين بيجالايا أو آدي حبسك أو قلي أما بقار تراكي قلي أما بقار ما عرفت دروب أو مقدين أما بقار ما عرفت وحياة سلادها والله وحوقف إمكرانتية لحد إنه يرتو وحي وقول كيابه وهذا نوع عرفت ذلك ونرشي كان عيبا عربي مركا آدي هنتي نول والقريسي marka taas ayaa runtii lagu dhalisay sidee inta oo problem baa jiray adeer kale jaamacad markay sameysay research oo ay leedahay Soomaaliyeed ma mashquuliyaan ilmaha maaragtay role model malahan ilmuhu inta badan rajadooda mooyaan marka daas way iskuulka uga baxa researchada marka akhrinay ba aad iyo aad iyadana nooga qaraxsay waxa sababtay tahay ilmaha markaad arag marka waxa waayo marka waxa laga hadlayaa marka ay aad u hadlay markaas gaangistarka markaas waxay dhigeen gaangisku musiibata ma ahay ma aragtay yaraan doon marka annaga waxaan nita sunniga war intii la kelmadan hadii la yiri waa inaan ku talagalaa inaan waxa laga hadlayo ilmaha hadda inoo kuraayo 10 jir 12 bal kuwaan dambe inaan ka ilaalino inay kuwii hore dariiqa raacin oo aynu isku dhexda isku wada xiran oo aynu isla shaqeyno oo aynu wax qabano so midaas aan intii nagu dhalisay all that maaragtay negative oo badan oo kala macno oo aan aragnay iyo xanuunkaas maaragtay joogtada oo maaragtay raadiyo iska dheeraatay dadkii inta iska walwalaayay parenting iyo maaragtay ishe qof walba ama dadkii ka maqan ama marka waxaan yiri waa in aan waqti Facebook sameeyna oo iscaawis oo tii oo sunnimaadna oo isu tanaasula oo maaragtay wax wada qabana soo taasaan intii ishe maaragtay ay ahay gobolka aad baa u mahadsantahay Firdaws waa program hawsha wadan waa hawl caaqibad leh oo macnaha in loo riyaaqo mudan in la caawino mudan Firdaws maxaa soo far ama ilaa hadda maxaa idinka suurtagalay inay mid qabsadaan maxaase wax caqabadaha jira maxay yihiin oo in hortaaga oo meelaha higsanaysa idinka hortaagan wallahi walaal wax badan baa loo suurtagalay run haddaan kuu sheego dada markii aad tiraahdo intaas oo projectyaasay markaba lacag bay ka fakareen lacag maxaa qofku u helay run haddaan kuu sheeg intaan projectyan wada sameynay weli cid lacag ma siisay malahan anaga ayaa xooggayaga iyo maaragtay caqligayaga iyo lacagta anaga ilaahayna siiyay ama maaragtay aan baanu kaashanaynay oo isku dirsanaynay muxuu ahaa programyo badan oo runtii aad iyo aad muhiim ugu ah community-ga ayaan sameynay oo ay ka mid yihiin maaragtay nafaqada nutrition class baa wadankan la dhahaa oo isaga aan bilownay oo Friday-da dhacaya 3 ilaa 5 oo programka khaasatan hadda noo faahfaahin programka waxa waaye runtii waxaan ka hadlaynaa oo aad iyo aad muhiim u ah cuntada ayaa waxaan ogaanay ilmo badan iyo dad badan oo waalid inay cuntada isu dheelitiran aysan cunin wadankan waxaa lagu leeyahay mar walbaba haddaad cunto soo qaadato waa inay u ekaataa sida maaragtay rainbow kale oo cuntadu kala noqotay guduud leedahay cadaan leedahay maaragtay cudurro badan oo wadankan ka jira la isaga difaaco oo maaragtay iyo cudurkan waliba aad iyo aad u baabi'iyay dadka aad iyo aad inoogu jiro oo obesity-ga oo qofku uu aad iyo aad hilib badan u fuulayo markaas dhiikar ku dhacay markaas kor ku dhacaysa markaas maaragtay ishe cudurro badan oo complicated oo ku dhacaya marka runtii aad iyo aad ayaan maaragtay ishe aan success ugu noqonay waxaan runtii partner la noqonay health commons oo daar kuba joogta oo iyaguna si fiican dadaalaya oo every maaragtay arbaca kasta iyo jimca kasta sameeya 1 to 5 programyo oo health awareness ka sameeya meesha wacyigelin xagga caafimaadka ah marka sidaasaan maaragtay aan ku bilaabnay iyo haddii ilaahay ku roon yahay inaan maaragtay aan runtii haddaan anagu aan xataa aan hadda yara bilownay in dad kale ay sidoo kale waxaan rabnaa ay nooga daydaano ay sidoo kale u sameeyaan oo maaragtay isha la isla wada qaato wixii maaragtay bulshada ugu jirta faa'iido Firdaws aad buu mahadsantahay
programka wadan ma ka heshaan engagement ama wada shaqayn ama soo dhaweyn ma ka heshaan bulshadiina aad u qabataan ee Soomaalida والله أبو معن عادي وأنا أبو حوا قفك إنك سو مد بين عالم كقفك استراتيجي وكبضتي ومشغول المهيستا سو أنا قرنتي أنت يعني ما عرفتي كده ذلك كنت عادي أدبا ما عرفت هذا الشقين إيو ما عرفت إماتك أي كلاس الإمانة يعني أنا وهلا إن بدنا وكسوينا يعني ما عرفت كسر رون هذا لكن كنت ودن كان قفك ماركات هل ساعة بس عشو وتاس aad ugu adag qofka ilmu ka soo tagay ilmaha ma aragtay daycare iyo marka wax dhib yar ma aha laakiin waa wax ma aragtay aan rabno inaan adkayno iyaguna ay arkaan inay naga tahay dab inaan wax aan ka tagaynin markaasna aan sii wadno halmaan hadalku ma jirto Fudayso Jaamac Yusuf oo ah executive Somali Women's Education Network dabcan programmaday fuliso ama implementation kooda waxa kamid ah wacyigelinta arrimaha bulshada waxay partner la tahay hay'adu partner la tahay ama la shaqeysaa health commons oo arrimaha nutritionka iyo parenting classeska oo arrimaha lagu tababaro waalidiinta qabtaan waxay qabataa ciidul fitriga maalmaha ciidaha ay dhalinyarada Soomaalida oo xarunta u badan meelo geysaa meelo u diyaarisaa ay ku soo qaataan waqtigooda dabaaldega waxay qabataa oo kale Father and Children Project waxay si gaar ah uga shaqeysaa dumarka waxay bartaa gabdhaha Soomaalida sida la socotaan wadankeena dhaqankeena waxa salbu ahaan jiray dumarka oo fulin jiray waxay sameeyaan ayaa dhaqankeena lagu garan jiray oo bees u ahaa sida darteed fahmo waxay bartaa arrimaha maaragtay dhaqanka la sameyn jiray sida farsamooyinka gacanta ee dumarku sameyn jireen ee gabdhaha Soomaalida inta ku koray bartaa soo sidaas ma aha baan ku bilowna hadda waxaan hadda bilownay waana wax aad iyo aad runtii u baahan runtii farsamada gacanta waa wax aad iyo aad muhiimsan dadkeenana runtii aad iyo aad ayay wax hoos uga dhigi jireen soo dad badan ayaan baran dad waxaa arkaysaa si kasta haddii la yeelo sariir aan xiran karin waxaan wax dhiba ma aha laakiin ay ku adag tahay inuu intuu focus gareeyo khudbaha isu geeyo marka runtii waxaan rabnaa inaan focus gareyno waxyaalaha basic ah oo guriga oo dhan oo la samayn karo dhan inaan arrimaha dhaqanka walaal waxa aad iyo aad oo aad iyo aad dadku jecel kabad waa wax aad iyo aad ma aragtay dhaqankeena oo lahaan jireen waa waxa guriga qofku u dhisanayo oo rarada iyo kabada iyo ayad dilinta iyo moqta aanay waxay ahayd asaaska ma aragtay guriga qofku inuu gurigiisa isagu ma aragtay oo udbaysan karo ma aragtay u sameyn karo inuu gacantiisa ku sameystay marka runtiina qof hadda waxa weyn ma aragtay gaaraya ma laakiin waxaan rabnaa inay arkaan gacanta qaybaheeda oo runtii inihii baa waxay ku waasheen internet iyo TV iyo ma aragtay inaanu ka yareyno ay arkaan another skill oo kala sameyn karaan oo ku mashquuli karaan oo future-kana ay gaari karaan intay sameeyaan wax qurxoon inay gadan karaan oo ma aragtay artigina annagana waxaan runtii aad iyo aad iyadana muhiim aan u saaraa Minneapolis Institute of Arts ayaan leenahay iyagana project every month hadda u dambaysa ay hadda labaad ayaan geynaa dhalinyarada wixii raaci karo waqti haya waa project furan oo la dhaho Target Family Day wuxuuna muhiim aad u yahay ilmuhu waxay bartaan sida ma aragtay xataa painting loo barto oo guri loo paint gareynayo waxay bartaan crafts waana wax aad iyo aad babalka dhan ugu furan qofkii raba inuu yimaado ama aado waa hadda maalin walba oo ah axad oo bisha labadeeda ah bishay doontaa noqota axadda labaad oo bil kasta markaasayto waxaan ma aragtay sheeg member baan ka nahay dadkii u baahan member bay ka noqon karaan waxaan aan aad iyo aad ugu talagalay walaalo inaan anaga yareyno dadka ma aragtay isolation ay ku jiraan Soomaali adaa iga sii badan ma aragtay waa in dadku ma aragtay ay bartaan inay aadi karaan meelaha aqoonta ay ku kaydsan tahay anaga runtii marka aan la yeelanay partner Science Museum of Minnesota waxaan ka wadnay
ilmuhu hadday rabaan inay noqdaan scientist ilmaha wadankan waxay sameeyaan waxa la yidhahda enrichment programs lacag badan baana baarata ku bixiyaan roo Soomaali haddaynu nahay waxaan qabnaa iskuul hadda ilmihii geeno oo u diray oo u soo noqday inuu ma ka digin waa in ilmaha programyo specific oo waxa ay jecel yihiin inay bartaan la sii geeya aniga cadaan badan research ka qaaday waxay dhaheen bishii yeerkii $6,000 ayaan u talagalaa on enrichment programs waxay ku leeyihiin enrichment programs waa $100 miisaaniyad baan u sameynaa ilmaha macnaha programmada kaliya waxaan aragnaa waxay dad badan oo ii sheekeynaya baarinta haddii aan aragno ilmuhu inuu science ku fiican yahay mar walbaba science projectska baan iskuulka ka sameeyaa waxaan sameynaa bay dhaheen tartanka science-kan gelinaa hadduu jecel inuu guryo dhiso city dhan baa la leeyahay future city design garay ilmihii waxaasoo markaas ayaana ku mashquulayaa training bay ku geynayaan lacagay ku bixinayaan marka waxa waaye marka uu grade 12 gaaro wuu yaqaan ninkaas inuu noqdo nin engineer oo because wax badan buu soo maray oo ah soo maray already ayaa u soo carbiyay may grade 1 marka aragna bay anaga ilmaha galaan enrichment programyada kale oo aqoonta banaanka ah waa ku bilowna ilmihii marka markuu grade 5 yahay wuxuu jecel yahay uu yaqaanaa inuu computer science computer ku jecel yahay inuu caafimaadka jecel yahay inuu meeshuu jecel yahay marka u badinaa bay ku leeyihiin marka uu 12 gaaro waxaan bilowna meeshaas laftigeeda inuu volunteer u aado markaasuu volunteer aaday departmentgaasaan geynaa uu ka shaqeeyaa markuu uu bilaabay high schoolka uuba yaqaan wuxuu rabo inuu noqdo 100% marka annagana ilmaheen waxaa arkaysaa ilmo ma aragtay high school ka baxay markuu ka baxay schoolkii ma uu yaqaan because ilmihii ma aragtay waxaa loo qabay inuu inta high school ka bixi doono uu aadi doono ma toos wuxuu rabo inuu noqdo mana aha marka ilmihii wax badan oo sanado badan waxay ku lumiyaan waxay rabaan ma yaqaan gabdhaha arkaysaa kule 2 sano meel iska dhigan ka tegi haddana waa maxay because waa ka heli waxaasaan dhigan marka waxaa dad badana marka waa inaan ilmihii aan ka ilaalinaa oo ilmihiina aan u ogolaanaa lacag inaan gelin haddii ay noqoto ma aragtay inaan ma aragtay kala sidaan extraga gelinteed kale waxa ay dadku aad iyo aad ay oogeen qofku markuu loo income yahay kalaasidaas free ku helaya every community center aad tagto kalaasida way ka socdaan dadka lacag la-aan waay haddaa rabto science math science bay dhahaan haddaa rabto ma aragtay artiga kalaasi artiga oo waxaa kaliya loogu talagalay kalaasiduna waa ikasam tis waxay u baahan yihiin ilmaha inaa ku qodho ayaadna soo qaado iskuulla every community center oo magaalada dhan annaga hadda meesha aan deganahay community centerkeeda ayaa ma aragtay bixiya laakiin iskuulladaa lagu dhigaa community centeradaas ka garanaysaa waa ikasara kurkura way yaqaanaan ilmaha waxaa arkaysaa soo baxay oo wixii uu rabay inuu noqdo 100% ma aragtay kusoo baxay ilmihiina ma aragtay waxay samaynaysaa self esteemkiisa dhisaysaa marka waxaa laga hadlo si uu jawaabo yaqaan kusiiraantiisii uu soo maray uuna ma aragtay isku kalsoon aad baa u mahadsantahay Firdaws warbixintaas ilmaha yaqaanayaan ee aad siisay oo inala wadaagayaan daawashayaasha ilmaha leh ee qurba joog programkan faalgooya dumarkana macnaha arrintan si gaar ayay u khusaysaa iyo abayaasha iyo waalidiinta dhammaan arrimaha Firdaws qabato arrimaha jeelasha iyo sharciga legal issue-ga waxmiyaa kala ka qabataan Firdaws والله توا بروجكت قاعد وبروجكت runtii hadii la ogaado wax qof kasta waxanuunkaas uu ogyahay ilmo badan ayaa la xiray Soomaaliya qaar baa waxa lagu xiray waxa la dhaho trespassing waxa bilin baa lagu dhahayaa soo gelin marka la hadaa soo gasho waa lagu xirayaa ilmihii markaas markii la xiray qaar waxay ku dhacday inta yarta ay ku dhacday laakiin mar alaale markii ma aragtay la xiray dagaal bay ku sii sameeyeen xaris xabaski dagaalka markay ku sameeyeen 5 sano la xiray sababtoo inta wax dagaalkaas feerka uu la dhacay baa qofkii goos jabay ama meel ku dhacday soo waxyaalo waxa jira ilaahay uma keenay laakiin markii ay ma aragtay dhacaan aad iyo aad ma aragtay marka ilmo badan ayaa saas waxyaalo badan oo kala gudsan ugu xiray oo ma aragtay isha inaga xiran marka anaga waxaan runtii engage kareynaa dumarka inuu ka xiran yihiin aan u sameynaa inaan isu nimaadno problemska ka hadalo wixii ma aragtay resource aan u sheegi karo iyaga oo ay u baahan yihiin aan ma aragtay aan u sheegno
aan ma aragtay support inaan u nahay aan tusno. aad baa mahadsan Firdaws. I mean programkaaga Somali Women's Education Network sida magaca ka muuqata waxay u ekeed in aad la shaqeyso dumarkii laakiin waa ka weyn yahay dadkoona ma aan naaga keliya dumar rag dumar caruur aabe inta waa la shaqeynaynaa waxaan aad iyo aad uga sheegaynaa halkaan qofkii raba inuu volunteer noo noqdo ama qofkii raba inuu ma aragtay ishig nala soo xiriiro inuu nala soo xiriiro karo waxaan anaga office-kayga ka furan yahay Branco Community Center oo ma aragtay dadka la yaqaana sida Riverside waxaana ma aragtay nalaga heli karaa ma aragtay ishig meelo badan marka qofkii rabo ilmo inuu noo keeno amaba runtii that child will be in good hands mentoring fiican baa u sameynaa gabar iyo wiilba waxaan rabnaa runtii inaanu ma aragtay waxa aan la jecelahay ilmaha kana ka aragno ilmaha ay isla wada ma aragtay ciyaaraan ay project isla wada sameeyaan ayna ma aragtay hadhow dhahaan walla markii aniga waxaan runadaan kaaga sheekay maalin dhexdeeda aniga waxoogaa aad iyo aad u daalana gabar ay tiri waxay tiri Firdaws hooyaday waagii bay tiri aad u imaan jirtay habartaan inta u imaan waxaa uga sheekeyn jiray iyo isaka inay ka saara ilmaha hooyadii bay tiri 1993-94 way goortaas aad u imaan jirtay tiri oo aad dhihi jirtay saasaa mar kasta ku timaad hooyadii isbedeli jiri so waxay tiri haddaad adi waagaa u timaadeen oo aadan wacyigelisay uga sheekaysan iskuulka weligay way tiri meel maanaan gaareen marka waxay tiri because of you ma jaamacadda u dhimay wallahi I just was shocked nacam qof inuu aad u dareemi karo inaad inta wax u qabatay marka waxay tiri hadda maxaan kuu qaban karaa ay tiri hadda anigu rabaatay anigu ilmihii inaan caawiyo gabadhii baaba gabadha lafteeda baa saa tiri waxay tiri wallahi waa she's on the record kartun baa lahaa waxay tiri ii sheeg aniga waxaan sameynayaa bay tiri ilmaha ayaan adiga hadda waxay tiri sidii aad noo samayn jiray baa anigu way tiri ilmaha u sameynaya marka waxaa waaye waxaan ilaahay ba ajir naga siinaya anagu maanan gelin maaragta wax kale in waxaan u rabnaa community-gayga waxa aan rabno inaan ka dhex aragno oo ah in qof kasta uu guuleystay aad iyo aad ayay noo dhibtay inaan anaga oo maaragtay guul la-aan nagu dhacday oo dagaal nagu dhacay oo dhibaato nagu dhacday oo soo qaxnay haddana inay nagu bedelo taxabis iyo dhibaato iyo marka waxaan rabnaa inaan guushaas maaragtay oo dhibaatadii halkeena inoo ka socdo ay kasii socoto xataa inagu meel horumar exactly meel horumar anagoo nimid ayaa waxaan u egnay haddana dad ka jaban oo maaragtay meel weyn ka maqan marka waanu iscaawintaas qof walba qof kale wuxuu yaqaana waduu ku beri waalidka waaweyn waa u yeer waxaa islaamaha waaweyn oo hooyooyinka dhaqankii wax badan baa ka taqaanaa gabdhaha markii aan shirin iyo wiilasha imaada uga sheekeeyay maaragtay historygii iyo waxaan ahaan jiray iyo waxaan hadda nahay markaasna connection dhexdii isu u yimaado because waxaa waaye mar in badan ilmaha luqadii ay lumiyaan dadkan iyo maaragtay iishe xoogaa waxaa yimaada maaragtay gaab oo maaragtay isfaham waa ah marka waa wax oo maaragtay qof walba u furan oo nala shaqeynaya waana wax maaragtay ah community focused inaan maaragtay anagu runtii dib isu eegayno maaha dad kale inaan eegayno maaha dad kale inaan maaragtay ku dayanayno waxaan rabnaa inaan anagu waxa aanu naqaano aan isu gudbino aan isgarab qabano Firdaws Jaamac Yuusuf aad iyo aad ayaan mahadsan tahay waa Firdaws waa sida la sheegayba waa activist ama hooyo Soomaaliyeed oo arrimaha bulshada ka shaqeysa lafdhabarna waa arrimaha bulshada iyo dhaqdhaqaaqa wax loogu qabto dadka Soomaalida ee qurbo joogta ah gaar ahaan gobolada magaalooyinka twin cities-ka waa qofka helay ama executive-ka ama foundation kale hay'adda la yiraahdo Somali Women's Education dadkana dabcan waa kuwa jiraan oo maanta dhigintaas waxaa ku leeyihiin Firdaws aad baa u mahadsan tahay fursadda aan siisay iyo aan kula sheegaynay maanta dadkan aad baa u mahadsantihiin daal la-aantiina halkaa kasii wada maaragtay inaa maaragtay niyad gelisaan oo noo yeedhaan oo maaragtay ishe aan iswada caawino si aynu maaragtay aqoonteena iyo qof walba wuxuu yaqaan qof kale uu gudbiyo waa mahadsantahay Firdaws dhegeystayaal daawadayaal barnaamijka intaas maanta laga yahay barnaamijka soo saaraha iyo cameramanka isku soo dubariday waa wiilkii arrintaas looga damayn jiray Cabdiyare Burhan mar kale kulanti dama xiisa leh sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi